بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الحاكم وقال على شرط الشيخين: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. walaalyaal ilaah baa subxaanahu wa tacaala mahad iska leh. marka labaad waxaa mahad ballaaran iska leh reer Boston, culummadooda sheekh yuusuf, sheekh cusmaan iyo sheekh maxamed iyo maamulka masjidka walaal sheekh cabdulqaadir iyo sheekh cabdulfataax, culummadoo dhan, macallimiinta, waalidiinta, odayaasha, maxaa la yidhahdaa communitiga reer Minnesota oo dhan, reer Boston oo dhan waa mahadsantihiin. ilaahay khayr hadin siiyo. wejiyadan ifaaya oo quruxda badan, ilaahay waxaan ka baryayaa sida aan maaragtay idinla kulmay si la mida inuu jannada iskugu keeno oo aan maaragtay halkaas wada degno. run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay inaan maaragtay faamilkeygii ahoo Soomaalida ah inaan la kulmo. farxad gooniya bay ii tahay. waxaa weeye safartaas dheerna waxaan u soo maray liusaafixa wujuuhakum, inaan wajiyadiina daawado, intaas ay igu filan. ilaah waxaan ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan in maaragtay uu bur isku mariyo iyo maxaa la yidhahdaa wanaag u dhex dhigo. ilaah waxaan ka baryayaa Soomaalida meel walba ay joogto inuu ammaan iyo amni siiyo, dhibkan uu ka dulqaado. ilaah waxaan ka rajaynayaa, ka baryayaa ummadda Soomaalida ciyaalkooda iyo awlaadda inuu ilaah u ilaaliyo, khilaafka iyo dhibka dhex taagan uu ka dulqaado. walaalayaal, intaa kadib waxaan insha allahu tacaala wax yar ka hadlayaa uu sheekh yuusuf iyo hore uga soo hadla iyo sheekh cismaan. waa rabadaanka wax quseeya iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa rabadaanka. fadliga rabadaanka uu leeyahay sheekha aad uga hadlay, axaadiid badan iyo aayado badan soo taabtay. waxaan ku soo gunaanudayaa halkaa xadiidkii hadda aan akhriyey oo keliya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, xadiidkaas waa xadiiث اlqudsi, waana xadiid aad run ahaantii u weyn oo cajiiba, fawaa'id badan leh. sheekh yuusufna uu fawaa'id badan nooga soo saaray. waxaan ku biirin lahaa faa'iidooyinkaas. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi bani aadamka camalka ay sameeyaan oo dhan ayaga iska leh, abaalmarkooda abaalmarintiina horaa loogu sii sheegay. soomka ma ahane, soomkaana iskale buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala, anaana ka abaalmarinaya. culummadu fasiraad badan bay ku fasireen, faa'iidooyin badanna way leedahay. ilaah waxaan ka baryaynaa intaasoo fawaa'idba inuu ilaahna wada siiyo. waxaa ka mid ah walaalayaal soonka uu ilaahay subxaanahu wa tacaala gooni uga dhigtay markii qiyaamaha la tago, sidii xadiidka riwaayadda kaleba ay leedahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi kullu camal ibni aadama lahu kafaaratun ila asiyaamu. yani markii qiyaamaha la tago, xadiidkii nebiga sal ly slam wuxuu noo sheegay qofka bini aadamka wuxuu yimaadaa qiyaamaha asagoo acmaal badan la yimid, salaad, soon, zako, acmaal badan oo wanaagsan buu la yimid. markaasu wuxuu imaanayaa qofku isagoo ka nacayey, kana aflagaadeeyey, qofkaana dulmiyey, qofkaana xoolo ka dhacay. markaasaa waxaa laga qaadayaa xasanaadkiisii oo dhan, waxaa la siinayaa dadkii uu dulmiyaa la siinayaa.
xasanaadkaas marka waa wada ajarkiisii oo dhan laakiin soomkaan laga qaadaynin qofka salaadiisii waa laga qaadaya xajkiisii waa laga qaadaya sadaqaadkii waa laga qaadaya laakiin soomka qofka waa loo reebaya xadiidkaas nabiga sal ll ly slam uu ku leeyahay marka kullu camali ibni aadama kafaaratun lahu ila asawmu marka fadliga noocaasna waa uu leeyahay wuxuu kaloo soomku uu yahay walaalayaal acmaasha wuxuu ka mid yahay weliba waa camalka keliya wax shirkiya uusan geli karin shirkiyaadkii hore oo dhan way jiraan dad u tukada qoraxda dad ku xajiya waxaan ilaahay subxana wa tacaala ahayn dad lacag u bixiya waxaan ilaahay subxana wa tacaala ahayn laakiin lama sheegin qof kale u soomi kara lama sheegin ilaa ilaahay subxana wa tacaala keliya maana keligiis baa ilaahay uu la tafaruday waxaa cajiiba marka walaalayaal markaad sooman tahay oo weliba boston oo kale aad ku sooman tahay samarka la gaaro aad u kulul yahay oo 90 degree ay baashu marayso oo dhididku uu kaa dhammaado talaagadana ay kaaga buuxaan caano iyo cabitaan iyo casiirka iyo waxaa jecleed oo dhan waxaa weeye naftaadu ma siin kartid ma xadi kartid ayadoosan qofnana kuu jeedan haddana keligaa baa tahay mana xadi kartid laanna ilaah baa subxaanahu wa tacaala aad u soontay qodobka labaad walaalayaal oo muhiimka ah maalmahan dambe waxaa iska daahirad noqotay waxaa aad u soo shaacbaxay soomku dadka waxay ka dhigtaan mawsim iska sanadlaho iska yimaado oo maxaa la yidhahdaa cuntada iyo cabitaan keliya la iska daayaa laakiin habeenkii waxaa la iska daawadaa musalsalaad filmo badan baa la daawadaa qofkii waxaa weeye wax kasta waxay u yihiin xalaal ilaa maaragtay cuntadaas iyo cabitaankaas maahane daahiradaas marka annaga keliyana ma haysatay caalamulislaami oo dhan bay haysataa bisha ramadaan baa waxaa la soo saaraa wixii musalsalaad jiray oo dhan meesha qolyaha caddaanka iyo samarka iyo filmo soo saaraan caalamulislaami waxaa lagu aadistaaba filmada bisha ramadaan markaas qofkii maalinkii dhan waxaa laga yaaba inuu ag fadhiyo filin kuuriyaana ama filin maaragtay baa laga yaaba maanta inuu ag fadhiyo ama habeenkii uu musalsalaad daawanaya dhici karta ama qofka markii la yidhahdo waa soomanta intuu guri isku soo xiro uu sariirta iska saaran yahay uu maaragtay iska nasanayo habeenkii markuu afurana uu socsoconayo keliya marka hawshii aan qabanaynay maalinkii unbaa waxa loo wareejiyey habeenkii subaxiina waa la iska hurdaa ramadaanku walaal saas ma ahan diinteennana waxay u soo degtayba ina dhinaca ruuxiga inay qofka ka dhisto waxaana jira laba arrin mid la yidhaahdo waasic iyo waxa la yidhahdo raadic waasicu waa qofka inuu qalbigiisa iyo damiirkiisu wax u diido weeye diintu midday u soo degto waa middaas raadicuguna waa shuruuc ama qawaaniin dowladuhu ay dejiyaan waxaa lagu yidhi waddadaas ma gudbi kartid haddaad gudubtid waxaa lagu siinayaa tigid qofka marka tigidkaasuu ka baqaya oo keliya amaa waasicu waxaa weeye ilaah baa ku yidhi waxaas iska ilaali waa iska ilaalinaysaa qof uga baqi maysid midkaasaana cajiiba markii qofka ruuxda laga dhiso damiirka laga dhiso darajo wuxuu gaaraa darajat alixsaan dadka aysan gaarin cumar bin khataab baa waxaa laga wariyaa inuu arkay asagoo amiiruulmu'miniina ba wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo ari badan la jooga markaasu wuxuu ku yidhi arigan mid ka mid ah iga gado lacagtiisa aan ku siiyo oo dhowtina waxaad tidhahdaa ninkii iska lahaa arigii waxaa cunay maaragtay waxaa cunay dhurwaa markaasuu ninkii wuxuu yidhi ma oga ninkan inuu yahay amiiruulmu'miniin cumar bin khataaba markaasuu wuxuu yidhi wallahi lacagtan aad sheegaysid aad baan ugu baahanahay maaragtay baahi badan baa ii haysa haddase maxaan ka sameeyaa marka ninkii lahaa waan maaragtay waan dhihi karaa dhurwaa baa wixii cunay laakiin ilaah xaggee ka aadaa buu yidhi ayna allah xaggee ilaah ka aadaa kaasaa marka waxay tahay tarbiyadda qofka islaamka uu ka dhisto sida ilaahba uu yidhi ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar qofka waxaa arkaysa isagoo tukanaya haddana been sheegaya haddana tukanaya haddana zinaysanaya tukanaya riba cunaya see marka ay salaadaadu u shaqaynaysaa haddiiba maaragtay aysan xumaan oo dhan kaa reebeenin marka walaalayaal soonka waa inuu noqdaa raadic soonka waa inuu noqdaa waasic waa inaa xumaan oo dhan uga tagtaa waxaan ku bilaabaya marka walaalayaal qodobada ah in ramadaanka loo diyaar garoobo ilaa 6 qodob meelahaasaan insha allahu tacaala ka sheegaya 5 camalna waa sheegaya insha allah markaanoo kale marka waxaan jeclaan lahaa inuu qofkii ama qalin iska soo qaato oo qorto ama maxaa la yidhahda taleefonkiisa ku qorto barnaamij inuu ka dhigto waa barnaamij waa brogaraamkaagii bisha ramadaan waaya marka waa qoranaysaa waxaa ku qoranaysaa maxaa la yidhaahdaa waraaq dheer sariirta korkeeda ku dhajisanaysaa iyo talaagadda horteeda iyo guriga albaabkiisa maalin taa qabanaysid waa xasuusanaysaa farta ku fiiqanaysaa
رمضان كولا ليال ديار قرو ويسو وإنه النقطة ديار قرو إلا لح بلاد كهرها سيد أصحابتي النبي لقوريه لح بلاد مركو رمضان كدمية بدعاء سنجرين إلهه بشر رمضان نجارسي إلهه بشر رمضان نجارسي مركي صومانا لح بلاد قدم بيهجر إلهه نجا أقبل إلهه نجا أقبل مركز سنة كي ولما بحكوا ماضي لح بلاد دعاء إلهه نجارسية لح بلاد إلهه نجا أقبله سنة كي وكل ماضي أنا ولا ليال مركانو أرس لنا فاملك أرس له وحسيد ديار قروان لما بلاد مياه بالكهرباء قبلها لو سيد دقاء لا سيد ديارية لسكود دبرداء وأرس حفلت قلن جبينها الله سمينا يا الله بالكهرباء لسكود دبرداء بشهر رمضان وحلو ديار قروبا يا لاست مينت قفكم ما بحسوس طبعا بال رمضان صار صعته أهمية بدن أو ملهن هلو ديار قرو ولا ريال بشا أن ديار قروب نقضب ككوبات فرحت إي البهجة قف كستو مسلم إنه وجهي سكم مقضى فرحت نيد محالي هذا نيد وناك dadka isku salaamaan isku tahniyadeen ciyaalka yararka laga farxiyo bishii Ramadaan baa soo galaysa maxaa sameynaysaa aabo maxaa ku diyaarsan adeer maxaa ku diyaarsan hooyo insa la yiraahdo oo dadka muslimiinta wajigooda uu ka muuqato farxad hada bishii Ramadaan waxaan filayaa ama waa arbaca ama waa khamiis dadka intay adduunka iskaga mashquuleen baa inuu soo socdo Ramadaan in kale aan la kala xasuusanayn farxad anaga dhan walaalaha naga muuqato bashaashnimo iyo bahjad وجهنا هكم وقته قضب كلابات هلا وديار قروب رمضان نية صالحة نية صالحة وحوي إن الله سبحانه وتعالى أتوبد ونكسن وكينتد إن الله سبحانه وتعالى أدمارتي كبر يديد إنه إله سبحانه وتعالى بشان رمضان كان بشان يسبدل اللهد إن بشان نحن حرتيد نقطة بشي إله سبحانه وتعالى ونار تكاحرين لها إن بشان نقطة بشي إله سبحانه وتعالى دنبقا ودافي لها إن نقطة بشان رمضان بشي عاجز لماذا يدل لماذا ما أردت تخلف كولاهي كقاد لها بشي أكون قلنا قف رجع وأدون كيس وحكي قبصة النية مركوين الله معنا ولا ليال وحول بنا النية يكون صعدان وعن بشان ولا ليال أن وديار قروبنا توبت إن أنجا إله سبحانه وتعالى علاقات كان نجد حي أنها جنه بالآدم بأنها ودنبابنا وقابنا وحبطنا خلطها نجد عاية إن إلهي سبحانه وتعالى علاقات كان الله لنا أن هجاجنه وحنكون هجاجين كرنا ولا ليال إن صدقات بدن لبحنه صدقات بدن لبحدين وحكبل هذا قرابة هذا وحكبل هذا مجال هذا الدجنيت وحكبل هذا واردك وحكبل هذا أبتجا يوحنوسا أرنت النوع عسنا الرهانتي وجالية الصومالية وحل لجو أمانه بيكون جرت أرنت صدقات كلا لبحايو سيب قرابة الله حريرين أيوه بيلاش الله دراية الله دراية وارد كي هو يوين يا بوين يولالوين دباتيسن وواح أمتنا يكون وشهوين تاسوك الولا ليا هلا الله بلابه صدقات كان هلا بديو قعنت هذا هالنقطة قعن فرن وحلقوا هجاجين كرا حرير كأنك إله النور حي ولا ليال صلة الأرحام قف كأنه حريريه قرابة ديسي قرابة ولا ليال والله سعتان إله سبحانه وتعالى أدب وقدق وحون قرابة إلهي أبلن قاضي inuu gooyo qofkii qaraabadiisa gooya wuxuu ilaahay ballan qaaday inuu xiriiriyo qofka qaraabadiisa xiriiriya qaraabadu waa hooyo iyo aabo iyo adeer iyo abti iyo ilma abti ilmeedo ilma adeer qaraabo zamankan waxa aad u bat walaalayaal zamanul uquuq baan ku jirnaa zamanu anu waxaan isir waa zamanul uquuq yaani caasi waaridnimo badanna way jirtaa maxaa la yiraahdaa xiriirkan waa baska go'ayba aad buu u go'ay dadyo waxa arkaysaa isdhalay ama adeer isku ama abti isku ah intii la qaxayaan salaamin ba arkaysaa masaajidada marka joogtid wuxuu ku leeyahay adeerkay ama habar yartay ma salaamo waagii 90ga igu dambeysay waxa soo kale qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad buu ugu caroodaa ciqaab wuxuu Ilaahay ku soo dejiyaa ummadda jamaaci ah oo dadka dhan ku habsata qof kasta oo isku day qaraabadaada inaad lis soo qaadatid mid u wacdid wada salaantid nabigana wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii damca ama raba inuu Ilaahay risqigiisa u ballaariyo umrigiisana u dheeraysiyo falyasil rahima risqigaaga inuu ku ballaarto ma rabtaa faqriga ku dul yaal inuu Ilaahay ka dul qaado majacasha beejeegaaga inuu Ilaahay ku badiyo majacasha risqigaaga badso ma rabtaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala risqigaaga ku waasiyo
ma jecesha inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala faqrigii dhibka kaa dulqaado ma jecesha ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maaragtay cumrigaaga dheeraysiiyo intaasba haddaad jeceshahay haa ma dhihi kari weydeen ma jecesha inuu ilaahay risqigaaga badiyo haa haddaad jecesha inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala risqigaaga ballaariyo qaraabadaada keliya xiriiri kii tabar yar gacan qabo kii aan ku salaaminna xiriiri waatii nabiga sal alla alay slm nin saxaabi uu ku yidhi yaa rasuula allah aniga qaraabadeeda waxaa ka mid a dad aan xiriiriyo aanan ixiriirin ma xiriiriyaa mise waan gooyaa nabigu wuxuu yidhi xiriiri waajibkaaga aduu ka soo bax waxba kaama gelin haddii qofka kale uu kula hadlayo haddii kaleba dadku badanaa waxay yidhahdaan aayadaybi lama hadasho asagaba ima soo salaamo adiga taada keliya ka soo bax qaraabadaada xiriiri meel walba aad joogtid laga hortagi karaa ilaahi subxaanahu wa tacaala lagu maaragtay badin karaa xiriirka naga dhexaya annaga ilaahi subxaanahu wa tacaala in walaalayaal aad wardi badan samaysatid soontid inta ilaahi subxana wa tacaala uu bisha Ramadaan kaa gaarsiinayo qodobka waxaan ku soo gunaanadayaa walaalayaal qof kastoo naga mida in Ramadaanka uu ugu diyaar garoobo mashaaqilka haysta inuu yareeyo waa qodobka ugu muhiimsan waxaa kaa hor istaagi kara inaad cibaadaysatid bishaas oo dhan yaray shaqo hadday ahayd waxaa isku daydaa inaad fasax ka qaadatid haddii aad haysid howlo kale waxaa isku daydaa inaad baray ka qaadatid haddaysan macquul ahayn waxaa isku daydaa inaad taymkaaga soo yaraysid haddaad banooni iyo wax ciyaari jirtid waxaa isku daydaa inaad istaajisid saadan uga mashquulin bishaa Ramadaan oo bishaa Ramadaan ay kugu dhaafto qaabkii ugu wanaagsanaa waa qodobka ugu muhiimsan weeye qofka waxaa laga yaabaa suu uu isku leeyahay waa cibaadaysanaysaa buu bishii Ramadaan dhex gelayaa markaas dhinaca waxa kaga dhagan hawl dhinaca waxa kaga dhagan qorshe dhinaca waxa kaga dhagan arimo kale ma dhaqaaqi karo kulleeyahay maxaa masaaj ku imaan wade waa shaqeynay oo shaqadan ma iska soo yareysido bishaan ilaa waa bil jaanis oo aad cibaadaysatid waa dhif way qofku inuu hore ugu sii xisaabtamo ha loo dadaalo marka midaas walaalayaal qaybta kale waxaan wax yar insha Allah ka taabanayo walaalayaal bishaan Ramadaan iyo acmaasha la qabto aad bay u tiro badan yihiin aad bay u badan yihiin shan baan anigu ku soo koobi lahaa camal inuu qofka meel ku qorto oo mid walba wax ka yiraahdo shanta midda koobaad walaalayaal waxa weeye adiga iyo quraanka barnaamij u sameeso adiga iyo quraanka idin qusaya labo adiga iyo salaada barnaamij u sameeso adiga iyo salaada saddex adiga iyo ducada barnaamij u sameeso adiga iyo ducadaada afar adiga iyo sadaqaadka shan adiga iyo qaraabo xiriirinta shantaas camal alla leeyahay shantaas aan ka war doono sanadkaano bal shantaas aan maaragtay meel uga soo haro kaliya waxba kale ha isku daalinin adiga iyo quraanka walaal waxa samaystaa wirdi ama soo Soomaaliya yiraahdaan wardi quraana samayso ha isku badinin maxaa la yiraahdaa hodhowti aadan ka caajisina لأن خير العمل ما قل ودل وحير سمي وحاس لكن دائم علماء وحا لوريا أحمد بن حنبل إنه صدح مع الموت ومر دمين جري صدح مع الموت ومر دمين جري هل كي جزء وحا لقوا أخريا صدن دقيقة قفك عرب كي سوفي عين لبضي ساعة وحا هل كي ساعة وحا آخرين كرتا لبجس هل ساعة 24 اور ما لقى جري كرام مساعد بيوبضنت هل ساعة ما واحد بضن بها هل ساعة كليه الله له هل ساعة إلهي قرآن كان سيم 24 اور واشقيسا سو ماهن انت سيحان جرت 1 اور كجر بس هردادي 1 اور كغوي 6 oo kala hada soo kici jirta 5 soo kac 1 اور kaagaas meel ka gooy ama nusaac subaxiya iyo nusaac maghribkiya si nusaac iyo nusaac 1 saacad kaliya 1 اور waxa akhrinaysa marka walaal 1 juz ba akhrisanaysa juzku waxa yiraahdaan culimadu ilaa 7,000 xaraf ilaa 1,000 xaraf ba ku jira nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun halki alif wa harf mimki wa harf laamkiina waa xaraf halkii xaraf muxuu ilaahay ku bixinayaa 10 ajar halkii xaraf waa akhrisid 10 ajar markii la joogo ramadaanka nabiga wuxuu ku yiri xadiidkii dheeraa xadiiskii Salmaan ajar walba waxa loo laabaa 70 baa loo laabaa 70 jeer halkii marka xadiis oo 10 ku heli lahayd 70 baa lagu dhufanayaa
talow waa intee milyan yaa calculator ku xisaabin kara war looma hayo intaasoo malaayiin baad meesha kala tegaysaa meel ku qoro ilaahna u xisaabso markaa qur-aanka akhrinaysidna ku tadabbur macaanidiisa iyo maaragtay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ruuxdaada geliyo dhuuxaaga uu geliyo wardigaas samayso bal sanadkan hal mar keliya dhammay laba jeer saddex jeer ha isku daalinin ma tahay qof energy badan oo awood badan laba jeer keliya ballan qaado qaabkaas u sameey walaal qur-aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka sheekeynayay run ahaantii fadligiisa lama soo koobi karo waxaa aniga aad igula cajiib badan qur-aanka intaan fiirinayay aayadda ah suuratu racdi ku jirta suuratu racdi waa ayadoo dhan waa honkod saasay ku ligligaysaa waaba waxa ilaahu ugu bixiyba suuratu racdi onkod baa loo bixiyey onkod wa ficlan naftee waxay ku samaysaa onkodka wuxuu sameeyo kale suuraddaas waa ligligmaysaa inaad akhrisid oo aadan oonin ama aadan ligligmanin meesha waxaa way ma dhici karto haddii kale waxbaa kaasiya haddaad suuratu racdi akhrisid oo aadan gariirin allelehe waxbaa fiihi nadar waa in isbitaal lagu geeyaa waa in lagu soo baaraa lagu soo jakab garayaa sidaba nabigaba sal alla alay slam uu yidhi suuratu huud baa cirada iga soo saartay shayabatnii huudun wa akhawaatuha markuu akhriyo suuratu huud iyo suuratu lmursalaat iyo cama yatasaa'aluun iyo ida shamsu kuwirad waa suuradaha waxaa weye qofku inuu gariiro maahane uusan caadi u fadhin karin ilaah suuraddaas wuxuu ku yidhi walow ana qur'aanan suyirat bihi اljibaalu aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmowta bal lilaahi اlamru jamiica yuhuud baa quraysh waxay ku maaragtay kula talisay ama u soo sheegtay in ay nabiga sal ly slm tacjiiziyaan nabiga marka waxay ka dalbadeen sal alla alay wasalam magaalada mako qofkii arkay laba buur baa dhinaca kaga taalla waa meel saxaro ah webi ma lahan biyana ma lahan maxamedow bal labadan buur naga kaxay nebi soo ma tihid buurtaana dhinacaas gey buurtaana dhinacaas gey saan nebinimadaada u qorno ama dhulaka jeexjeex ama waxaad soo noolaysiisaa awowayaasheenni shanaad lixaad bal saan u waraysanno waxa aad ka sheekeynaysid inay sax yihiin iyo inay khalad yihiin ilaahay marka aayaddaas ugu jawaaba keliya hadday jiri lahaayeen buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala wax buuraha kaxeeya lakaana alqur'aan qur'aanku ahaan laha hadduu jiri lahaa wax soo saara odayaal horoo dhintay lakaana alqur'aan hadduu jiri lahaa wax webiyaasha jeexa lakaana alqur'aan يعني القرآن كان ميزان كاسله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى آيات القرآن كما كم حكم مكان جوابتي وكم مكان لكان القرآن بوهان الله القرآن كان أنت صرنا القرآن كما ولا ليال نفط وحو كسما يا عجب العجاب بكسما يا مركا أوفير ستيد أذيقوا دم بالنور يفتين بكرجا يا أصحاب تاع داركتين أدون كدا فيه سجارنا قرآن كاسيكو جارين قرآن كاسوي حكدكتين مفتاح إلهنا سبحانه وتعالى واتي وقرآن كسكويري إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن كدتك ويكه جرودين وين كجورين منا أخريان منا دجستان مرة دي قرآن كان لقى فوقاده سورة الفرقان أود يا كرتي يا محالي هذا سمعات يا دقال أنت وانا جتجسان أذيك يبرك ولا القرآن إلى قد النهجاج قدر كلا حوي أنت والصلاة أذيك يا صلاة salaada walaal isku day bisha Ramadaan shanta salaadood ina masaajid ku tukatid shanta salaadood masaajid ku tuko waxa ajabul ijaaba masaajidadu waa dhisan yihiin waxa laga yaabaa saddex qof ina maraq qaar ku tukato waa wax ay yaani naftuna ka oyso qalbigana uu ka murugoodo way masaajid dhan oo la dhisay oo hal qof kaliya ku tukanayo waa soo istaagaysa masjidkii waxa laga yaabaa inuu imaamka asaga isku aadimo isku aqimo istaw isiraahdo asaga uu tukado kaligiis talow dadkii kala xaqiijin jiraan yaa talow waajibka noocaas ka riday waa ajab way ajab al-ujaab wax aad loola yaabo way hadaad aragto ummad masaajidada ka carartay ogow khayrka dhan inay ka fogaadeen oo maarata wax badan oo maarata ilaahay subxaanahu wa ta'ala garabkooda ha galeen masaajidada walaalayaal hal laazimo shanta salaado masaajid ku tuko nabigu wuxuu yiri salaatul jamaa'ati afdalu min salaati al-fadh bi 27 daraja toddobaatan iyo toddoba darajo dheerta hadday Ramadaan noqotana 70 baa lagu sii dhufanayaa salaadaha marka walaalayaal hal laazimo waana waxa kaliya markii qiyaamaha lagu galiyo
godka lagu geeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi miisaanka dhulka lasoo dhigaa waxa koowaada lagu weydiinaya waxa waa salaadaada salaada say ku ahayd lagu dhihi maayaa ilma adeer aheedeen iyo isku tol aheedeen iyo yaad qaraabo aheedeen ma jirto salaadaada lagu weydiinaya fa in salaxat haddii salaadda ficnaato saluxa saa'iru alacmaal salaadda marka walaalayaal xooga ha la saaro masaajidkan insha allahu tacaala ha la buuxiyo taraawiixda iyana insha allahu tacaala ha la buuxiyo ha la tago saddex waxaa walaalayaal anta waducaa adiga iyo duco dadku waa dhibaataysan yihiin muddada dambe waxaa aad u batay xanuunada waxaa aad u batay kansarka waxaa aad u batay ciyaalada xirxiran waxaa aad u badan kuwa maaragtay dhulkooda laga soo kaciyey waxaa aad u badan muraadka qof kasta haddaad tirahda muraad man leedahay 100 buu soo qoraya dan uu iyo duruufo uu leeyahay duruufo intaa masaajid wax maqlaysaa sheekhow ii ducay sheekhow hal ii duceeyo baa maqlaysaa bishaan rabadaan intaad maanta waraaq qaadatid maxaa dhibaato ku haysta meel ku qoro maxaa dhibaato ku haysta meel ku qoro hadduu ka sheekeynaya sheekh yuusuf ducada qofka sooman ma dhacdo saddex waxay ka mid tahay ducooyin oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay uu aqbalo ciyaalkaaga dhib ma kugu hayaan ma ku maqli la'yihiin ma ka baqaysaa inay dhumaan adiga naftaada ma ugu baqaysaa dhibaatooyin badan ma dareemaysaa hooyo iyo aaba ma jecesha inaad u ducaysid dhibaatooyinkaas dhan meel ku qoro maalin walba ku ducayso intaa keliya ku soo cesho ilaahu ciyaalka ii hagaaji ilaahu ciyaalka ii hagaaji ilaahu ciyaalka ii hagaaji marka aad furaysidna ducayso marka aad furtidna ducayso sujuudda ku ducayso marka qur-aanka dhammaystay ducayso soddonkaa beri bal markuu soddonkaa beri dhammaata kadib fiiri xaaladaada laa shaka waxaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu kaa ajiibayo waxaa dhiboo ku haysto dhan ilaahi subxaana wa tacaala inuu maarata kaa kicinayo aan ducaysanna walaalayaal ilaahna subxaana wa tacaala markuu ka soo sheekeeyey bishii rabadaan iyo soonkeedii iyo waajibaadkeedii wuxuu ku soo khatimay aayad cajiiba waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daa'i idaa daan ducuu ilaahi subxana wa tacaala aayaddo dhan kusoo dhammaystiray ducadaas marka walaalayaal ha la ducaysto ummadda inuu ilahay dhibka ka dulqaadana ha lagu daro masaalixda caamkana ha laga ducaysto afar waxaa ah walaalayaal adiga iyo sadaqada nabiga sal alla alay slam waxaa laga wariyaa inuu ahaa jawaad wuxuu ahaa deeqsi nabiga sal alla alay slam wax walbuu bixin jira uu gacanta ku hayo haddii bisha rabadaan uu yimaadana wuxuu ahaan jiray kaljawaadi almursal ama kalriyaaxi almursal wax walba labalaab buu ka dhigi jiray sadaqaadka marka maalin walba waxaa isku daydaa bisha rabadaan ka mid ah sadaqo yar un inaad baxsatid hadda jeegaaga wax ka sii gooy $10 $20 meel sii dhigo $100 meel sii dhigo afurka ka qaybgeli dadka muslimiinta oo dhibaataysan masaajidadoo kale taga afuray bixiyaan wax ku darso $100 keliya geey nabiga sal lla alay slam yidhi qofkii qof afuriya wuxuu ka dhigan yahay waxaa way ajarkiisoo kula helaya 300 oo qof afuri oo soomaaliya jooga magaalada yarada aad deganeed ka soo jeeda afuri qof maskiin ah dhar u gad dadkii masaakiinta ahaa oo yeman ka soo qaxay oo soomaaliya yimid ku darso maaragtay qaxa ahaa wax un wanaaga la imow oo sadaqaada oo gacmahaaga ah jeegaagana ka goy $1 hadduu ku soo geli jiray haaf bixi leanna waxaa horumarsatid baa qiyaamaha kuu yaalla ugu dambaynta walaalayaal waxaan kusoo gunaanudayaa adiga iyo qaraabo xiriirinta maalin walba qof faamilka ka mid ah xiriiri raadi hooyada iyo aabbaha hadday nool yihiin ka ducayso nabigana sal allahu alay wasalam xadiidkii markii asxaabtiisa uu u khudbadaynayey wuxuu soo fulay mimbarka nabiga sal alay slam markaasu wuxuu yidhi aamiin haddana wuxuu yidhi aamiin haddana wuxuu yidhi nabiga sal ly slam aamiin asxaabtii way la yaabeen yaa rasuul allah ma aynan arki jirin adoo saanoo kala sameeyey maxaa kala maanta ka waday aamiinta wuxuu yidhi nabiga sal ly slam jibriil baa ila hadlay wuxuu yidhi ninkii rabadaan soo gaara bisha rabadaan ninkii soo gaara oo aan loogu dembi dhaafin oo janno aanan ku mutaysanin ilaahay naarta ha ku fogeeyo maxamedow aamiin ii dheh nabi maxamed aamiin buu yidhi ninkii agtaada magacaaga lagu sheego aanan kugu sallinna in naarta lagu fogeeyo aamiin ii dheh aamiin buu yidhi nabiga sal ly slam ninkii arka labadiisa waarid oo waayeela ama midkood arka oo aanan dartood jannada u gelinna in ilahay naarta ku fogeeyo aamiin ii dheh nabigu wuxuu yidhi sal ly slam aamiin xadiidka walaalayaal waa xadiis aad u weyn run ahaantii saddexdoodaba waxaa kaga faa'idaysan kartaa bisha rabadaan dhexdeeda saddexdoodaba bisha rabadaan baa kaga faa'idaysan kartaa waaridka hooyo iyo aabbo xiriiri meel walbay joogaan
isku day inaad sababtooda janno ku gashid isku day wax walba hooyada u samaysid uma dhiganto hal mar oo hooyada ay ka naxday hal maalin ka naxday uma dhiganto hal mar oo inta xanuunsata iyo hiqtiri uma dhiganto waxa u qabatid nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa laga wariyay inuu yiri qofka ma gudi karo abaalka hooyadiis iyo aabiis ay ku leeyihiin ilaa hal xaalad ma ahan talo waa goorma markaas goormuu qofka gudi kara xaaladda hooyadiis iyo aabiis haye gabdha idinka hooyo yiraahdo qofku ma gudi karo yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam abaalka hooyadiis iyo aabiis ay ku leeyihiin ilaa hal mar ma ahan markaas wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waa haduu arko hooyadiis iyo aabihiiso ama mid kamid ah adoon slave ah meel ku xiran oo qof iska leeyahay slave waa adoon waa markaas kadibna uu min khaalisi maalihi uu ka xoreeyo marka aabaha aragtidu adoona oo aad xoreysid waxa dhigi karta alla leeyahay aabanimadii waxa way maantay waa kala joognaa ma arki kartaa marka talow aabaha iyo hooyada iyo meel lagu haysto waa adagta marka walaalayaal waaridka loo baarifalo maxaa la yiraahdaa meel walba joogaan ha loo duceeyo haday geeriyoodaan ha loo duceeyo rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat ha loo yiraahdo ugu dambeyntii walaalayaal bishan Ramadaan fadliga ay leedahay kaliya yaanan ugu shaqaysanin wa ficlan waxa dhinaca kale yaala goodi aad u weyn oo qofku bishan Ramadaan haduusan ka faa'iideysanin wuxuu halis u yahay in Ilaah naarta uu ku tuuro sida nabiga sallallahu alayhi wasallam uu xadiiska hadda uu ku yiri bishan Ramadaan baa ku soo martay ma lagugu dambi dhaafin ilaahna subxaanahu wa tacaala habeen walba dadka ka mid uu xoreeyaa habeen dad baa la xoreeyaa kaba soqaadba haddii lagu dhihi lahaa ka waran adiga waxaa ka mid ah dadku ilaahi subxaanahu wa tacaala uu xoreeyey maanta wax la heli kara miya haddii lagu yidhahdo maantay ilaah subxaanahu wa tacaala naartuu kaa xoreeyey qoortaada waa ka xoreeyey see noqon lahayd talow aad baa u farxi lahayd soo maahan bishaan yaysan ku dhaafin alla ilaahay sanadkan inaan noolaan doono garan maaye bishaan laga dhigo cidqu min annaar ilaahay ha noogu dambi dhaafo waaridkeenna ha noo dambi dhaafo muslimiinta meel walba joogaan dhibka ha ka dulqaado ilaah waxaan ka baryaynaa bishaan Ramadaan inuu ka dhigo bishii Ramadaan oo qof kastoo anaga naga mid khayr badan uu heli lahaa dambi dhaafna uu heli lahaa naxariisna uu ka heli lahaa ilaahna subxaanahu wa tacaala annaga iyo waaridkeen iyo waalidiintoodba uu naarta ka xoreeyo waxaan idin leeyahay walaalayaal meel walba aan joogno insha allahu tacaala khayr aan iskugu duceyno meel walba aan joogno wanaag ha laga wada shaqeeyo diintan islaamka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo saaray xil ha naga saarnaato aan diinta u adeegno meel walba aan joogno aan isku dayno dadka culumadeenna iyo maaragtay dadka ahlu diinka inaan ka ag dhowaanno aan isku dayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu na dareensiiyo mas'uuliyadda diintan ay leedahay oo runtii aanan aad u yareen reer Boston waxaan aad ugu arkay dad wanaagsan oo qalbi xaaran oo wada shaqaysta weeye waqtiga aad gelisaan dhinaca shaqada dhinaca diintana geliya aad bay dadku u shaqeeyaan u dadaalaan ilaa khayr hadin siiyo inta in la midana dhinaca kala geliya insha Allah taala wa ila liqa'in aakhara wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh